waxaa ka warqabnay in xilligii aynu kaambeynka ku jiray madaxweyne muuse iyo kulmiye ay aad ugu ololeeyeen ciro iyo xisbiga wadani dalka laguma aamini karo. waxaa maanta meeshii ugu hooseysay maraya siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland oo go'doon siyaasi ah sii gelaya maalinba maalinta ka dambaysa. waxaa soo baxaya sawirro muujinaya in Somaliland meeqaamkeedu hoos u sii socdo. qalabka barbaahinta maalmahan ugu dambeeyay waxaynu kala soconnay dhacdooyinka ugu bah Somaliland. waxaa ka mid ahaa in wafdi reer Somaliland booqasho ku tagay Puntland iyadoo xukuumadduna ka warqabtay tegidooda sida ay ku sheegtay war-saxaafadeedkeeda ka soo baxay madaxtooyada kuna tilmaantay dad isxilqaamay. waxaa sidoo kale Brussels ka socday shir caalami ah oo lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo ay xukuumaddeenu sheegtay inaanay ka qayb gelayn cid ay u wakiilatayna aanay jirin, hase yeeshee ay ka qayb galeen sida ka warqabtaan guddoomiyaha xisbiga UCID iyo madaxweynaha Khaatamo. waxaa si baahsan ula soconnay arrimaha maamulka hawada Soomaaliya inay gacanta Somaliland ka baxeen. waxaa la sheegayaa in saraakiil waaxda socdaalka Soomaaliya soo magacowday ay Hargeysa joogaan. arrimahaasi waxay muujinayaan dareen ah in xukuumaddu raalli ka tahay in Somaliland la gaadhsiiyo meeqaam maamul goboleed. kulmiyow qarannimadii miyaad ka noqoteen? xukuumadda golayaasha iyo shacbiga ha u soo bandhigto xukuumaddu haddii isbeddel ku yimi siyaasadda arrimaha dibadda iyo ta gudahaba ee Somaliland.